markasta oo doorasho ka dhacdo wadamada caalamka gaar ahaan Afrika waxa aad loo hadalhayaa ama loo ogyahay in buunbuunin iyo xayeysiin iyo ammaan badan loo jeediyo madaxda markaas la doorto waana dhaqan ka jira adduunka iyo waliba gaar ahaan Afrikaba u gaariyay hadda watii dhawaantan doorashadii dalkaasi Kenya go'aan kama dambaysa maxkamaddu ay ka gaartay waxaana la leeyahay hadda waxa la mamnuucay wasaaraduhu inay lacag ku bixiyaan xayeysiinta madaxweynaha cusub ee la doortay wadankaasi William Ruto hanti dhowraha guud ee wadanka Kenya ayaa amar soo saaray wuxuu kaga amray ama uu kaga mamnuucay wasaaradaha dalkaasi iyo mas'uuliyiinta goboladaba in dawladda lacagteeda u isticmaalaan oo hambaliyeenta iyo in xayeysiimo loo sameeyo madaxweynaha cusub isla markaana warbaahinta lagu soo daabaco ama gidaarada lagu dhajiyo qadkaasi hadda waa uu xirmay waxaana doonaynaa in madaxweynaha la doortay wadankaasi loo hambaliyeeyo oo kaliya laakiin aan xayeysiin iyo ammaan aan lagu bixin wax qarash ah waxa sidaasi uu sheegay warbaahinta Julius Korer oo ka tirsan guddiga hanti dhowrka ee dalkaasi ujeedka waxa uu yiri warqadan oo soo saarnay inaanu badbaadino hantida dawladda wasaaradaha dalkaasi ayaa sidoo kale laga sheegay ama laga soo xigtay in lagu mamnuucay ama loo geeyay sharci mamnuucaya inay xayeysiimaha madaxweynaha cusub ay lacag ku bixiyaan wasaaradda maaliyadda ayaa sidoo kale loo diray fariin ku saabsan inaysan bixin karin wax lacag oo la xiriirta ama lagu bixinayo ammaanta madaxweynaha cusub ee dalkaasi